السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخيارتا يقول تحن ميلو البعض عالم كجوكتان يسوى البونو دابانيستان مركوري سلامة إسلام كيان يدكو السلامية السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحابتي هبين وتهاي وحان لي هبين وعان وناكسن سيدو كلا أصحابتي معان وتهاين وحان لي هاي معلن وعان أو وناكسن ميلو البعض جوكتان وصاحبك محمد ومركاسي مقال كلا لصور لابتي waxaana markaasi aan jecelahay in waxyaabo markaasi ugu soo kordhay oo macluumaad ah oo aan idinka hayo dalka Soomaaliya ama gobolada markaasi Soomaaliya in aan markaasi la wadaago daawadayaasha ugu taxan mar waliba markaasi aad ii danaya in ay ila socdaan warbixinada soo galiyo iyo wararka iyo barnaamijyada sidoo kale iyaguna si qurux badan oo sharaf ugu jirtana markaasi ka falceliya waxa daawadayaal marka hore intaan guda galin warbixinta ama arintan idin soo hor istaagay waxaan markaasi ka codsanayaa daawada hadii ay taadigu markaadi kugu horeysay oo aad soo booqatay waxaan ka codsanayaa in aadan iga hilmaamin wixii aan isku ogeen subscribe gambalka furo si muuqaalada iyo warbixinada aan idin soo galiyo ama soo galiyo aad u noqoto daawadaha oo hore markaasi muuqaalkaasi daawada sidoo kale waa sheegareyn kartaa asxaabtaadi ayaana kula wadaagi kartaa baraha bulshada inta badan ba Soomaalidu ay isticmaasho hadii noqon lahayd Facebook hadii noqon lahayd Twitter hadii noqon lahayd WhatsApp hadii noqon lahayd Instagram waa bilaash lacag la ama rabo asxaabtaadi muuqaalkan markaasi ha kula daawadaan si ayaguna ay macluumaad iyo arrimo badan oo markaasi ay u ogaadaan وهاجج مركو رأيت بعد ما سنتين سيد وناكسن عاد يقول حرنتين أو سوى البعض وقتي والباقي سنة مدة سوى إذا كم هذا إلى مال أن مانتين إن شاء الله دمانتين بقى وان إذا ما هذا علن دونا أنا جو مركزي مرولي بقى شعل إن مركزي أن إذين ما هذا عليهم وهاجج هذا بقى مقالير أيان شعليستي إن أن إذين صدوه بل داوداش هنا أن لو ذا جوا يجونا فكر كذا بل أن أركم سان أجنا هاي أسبوعين صور دافني إرايو أسبوعنا نكون جد جرنا وحل هذا الحيي مصيبة كذا عادي حرمت قبل كبنادر مقالة مقدشة هلك سوى دود ولا على هنا يكون إنتين الله أنحرسته أنت كل ما أنت حنوصلنا وداوع كسوجان وحلي هاي مركور الله عافية بل دمانتين بل آمين أن أدعينه أجر بيكوتها يقف ولا لك وحنوصلنا هدي أدعيسو أديكونا سيدو كرد دعاء ملايقة يكون دعينيسا انت هادي أنا وصلت تقنو وحن أقنها وحي كدعي أفر لواتنك بيشن أن كوكو جرنو مقالة مقدشو سيبا حاروتا قبل كبنادر هالكاسي أو شير مركاسي لوغا أرنسان هاي توبتا نبدا أمنيقا عاصمدا لوغا أرنسان هاي بلسي نسيب درو هالكاسي أي وحا كدعي قرح markaasi qof naftiis hura uu isku halkaasi uu markaasi isku qurxiyay ugu yaraan 10 qof ayaa ku dhimatay tirinta ka badan oo ay ku dhaawacmeen wagaag maalintii arintaasi dhacday dowladda federaalka Soomaaliya madaxweynaha ayaa markaasi iskugu yeeray laamaha amniga isagoo markaasi ka codsaday in baaritaano degdeg ah ay sameeyaan sidoo kale uu shaaca ka qaad inay jiraan dad markaasi la shaqeeya ururka al-shabaab بس أنت أوصل جلي ما هاي أرمى نوع عاسية ما دولة إن عن مركزي دليل أنا معارض نميه كل وحي وناكسن برشة وعن لقبنا وحي حنا دي وحلينا وحاسوا وحي هاي كل قف كل هالك هدو خلدينها وإن أتقوتها دورون وخلدن تاي سيدني معهم مركب وحنا رأى إن عن مقال ير أو فيديو أنا عن داودي إن مركزي داودا شو أن لو داوجو مقال كاسي للداودان مركز سيد واحد جيران يو سيد واحد دعين يو عدة كده بيسي مركز سيد أوغانيسن مركب وحنا جعل فيديو ير أو عن رأى إن داودا شو لو داوجو أو كسبسن مقال ير وعن شالستين داودا شو لو داوجو أيقونا بل إن يلا داودان فكر كودان أي كديبتان waxa muuqaalkan gabadhan aad arki doontaan waa markaasi la taliyaha dhanka arrimaha bulshada duqa magaalada Muqdisho waa injineeriso ay u tahay la taliyaha dhanka arrimaha bulshada gabadhan waxay sheegtay in maalinta uu qarax dhacayay iyadoo markaasi kamid ah dadkii la shirrabay ama shirka gal rabay balse waxay sheegtay nasiib darro waxay sheegtay in xilliga uu markaasi xogeyaha qaramada midoobo qaabilsan arrimaha Soomaaliya uu joogay inay joogtay balse markuu baxay ayaa waxa iyaduna waxay doonatay qada sida sheegtay waxayna markaasi sidoo kale raacisay in gudoomiyaha naftirkiisa uu ka codsaday inuu jiro shir marka waxay u sheegtay in markaasi qadeen oo ay soo qadeen doonto ilaan wuxuu alla qoray weeyeen marka iyada sidaas ay uga badbaaday dad asxaabteeda saaxiibaheeda dad badan oo garanays ay halkaas ku dhintay dad badan oo ku dhaawacmeen isla markiiba su'aal ayaa meesha shakiba imaaday
yaa qarxiyay yaase ka dambeeyay inkastoo shabaab ay sheegtay haddana dawladda iyo waxay isku raaceen in gabar la dhihi baasiro oo markaas indhaha la-eed oo shaqadaasi uu geeyo gudoomiyaha gobolka Banaadir inay ahayd kullay wixii jiro Allahu a'lam Soomaaliba hore waxay tiri beelow waxa uu marqaati gashadaa qof dhintay iyo qof maqan kullay gabadhaas way dhimatay horta Allah u naxariisto laakiin anaka ma garanayno in ayda tahay in kale in kasto bulshada dhamaanteed isku raacday in gabadhaasi aysan arintaasi ka dambeeynin haddana arintaasi ay jirto arin siyaasadeed ama waxa la yiraahdo inside job gabadhan waxay shaaca ka qaaday in arintaasi ayadoo gudaha ay gashay markuu qarax dhacay cabaar ay maqreed gudaha ay gashay kadibna ay aragtay sida wax u dhaceen waxay sheegtay meesha waxay ku aragtay in ay sunahayn wax qof markaasi isku qarximeen sidoo kale waxay shaaca ka qaaday meesha amaankeed waxay tiri aniga marka galay 3 jeer baa la baaraa waxay tiri marka saddexaadna scanning ayaa la maraa oo macnaha waa bashiin qofka jirkiisa inuu wax ku jiro la fiiriyo marka waxay tiri meeshaasi looma ogolo wala gudoomiye gaarigiisi wala senator baa loo ogolan wala MP baa loo ogolan meeshaasi waxa galay tiri qof markaasi dawladda ay ogtahay qof markaasi dawladda ay fasaxday ayaa galay gudaha markaad gasho qaraxa sida uu dhacay iyo burburka gudaha ka muuqdo uma eeko qarax markaasi qof ku xiran waxa uu ogyahay qarax meel lagu xiray waa sida hadalku dhigtay sidoo kalena waxay sheegtay in aan been markaasi dadka laga sheegin dadka la indha sirin oo la dhihin shabaab baa ka dambeeyay waxay tir shabaab ma aha dadka la shabaab ma aha waa inside job waa dad gudaha ku jiro waa dad dawladda markaasi la shaqeeya waa la soo ogyahay laakiin waxba waxay tir al-shabaab iyo gabadha masaakiinta waxba yeelan bal waxaan jecel horta muuqaalkan qaybta hore in daawadaashu ay la daawdaan bal muuqaalkan ila daawo qiime kadib qaybta dambe ayaan falqeynta gali doonaa ee daawasho wacan muuqaalkan marka waxaan rabay inaan ka hadlo dhacdadii xanuunka badneed ka dhacday Muqdisho daraad qarixii ka dhacay gobolka Banaadir ana alxamdulillah ilaahay waa ugu badbaadiyay waan joogay markay qaramada midoobay ay joogeen waan joogay laana doomi yariso aan la shaqeeyaa waxaan u ahay social advisor amba la taliyaha xagga arrimaha bulshada أنت بركي بحذي قدوميها حفيز كاوضا قلناي وكسو تغي الشقا ميل وآذي حدنا وكسو نقضي وحارمني إنا أرمك لي أو مقام كان قبل كبنادر كوضا هذا ويقول لها الشركة قالا شركة وجوكتو 4 والبالا قالا وحاكو يرقدومي ولي مقاذيني إن مخايد مالك كوتالان تغا مركوا صولابانا waan ka soo baxay gobolka albaabkiisa meel laabho moolka Muqdisho loo aado xamar weyne markaan maraayo nasiib darro waxaa dhacay qarixi haba dhacay waxaa idin sheegaa gobolka Banaadir aniga please dadkii soo wacay iga joojiyo wicitaanka aniga gaarigayga kuma galo la iima ogolo waxaan dhigaa parking laga sameeyo barti ee ahayd hotel Curuba waa soo baxaa baaridan soo maraa baarid labaadaan maraa iskaanan dhex maraa teleefanadaydan dhigaa boorsadaydan dhigaa waxa gacantayda ku jiraan furfura waana gabar booliska joogto waa la itaataabana waa la isii baara waa galay meesha ilaaha idinku daariyay intaasoo dhiba lagu galaayo ما إذا لا تاي أخليها شقايو شباب يقفكر يناكر إماتي أو حقار حسين نو وهيك مقال كاس waxaan filayaa inaad daabateen gabadhaasi waa la taliyaha arrimaha bulshada ee gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho engineer Yariso kullay ayada xoog badan naga haysa maad markii la fiiriyo sababta dadka meesha galo ayada meesha naga og amaankeeda sidoo kale waxay sheegtay in shirkaasi waa shir maalin walba oo Arbaca markaasi la galo waxaan inta badan looga hadlaa waa caasimada iyo
sida markaasi magaalada nabad noqon lahayd sidoo kale waxay sheegtay gudoomiyaha inuu yahay nin dadaal badan waa nin masaakiinta u naxariisto waa nin mar walba bulshada jecel in wax u qabto waxay tiri kulley qofkii wax u geystay kulley ani dhaaf maayo qof walbana ma dhaafay nin walbana way u dambeeyay aan ka soo tago marka sidoo kale waxay ka dhawaajisay arrin la yaab ah oo markaasi dawladda ceeb ku ah haddii arrintaasi run noqoto gabadhan la taliyaha arrimaha dhanka bulshada gudoomiyaha gobolka Banaadir duqa magaalada Muqdisho engineer Riso waxay sheegtay in kaamirada ku xiran xarunta markaasi howlalka shirarka ee Xamar waxay sheegtay in 2 maalin ka hore la damiyo haddii waa kaamirada CCTV laga tixraaci lahaa cid falkaasi ka dambeysay qofku waxay tiri 2 maalin ka hore ayaa waxay tiri kaamiradaasi la damiyay ama la halay marka waxay tiri waa la isku ogyahay waa inside job waa dad gudaha ku jiro meesha la socdo marka arintan gabadhan ay ka dhawaajisay waa arin inta badan ba bulshada inta badan ba ay qabto inteeda badan ba ma garanayo inay ila qabtaan ama fikirkaasi aad aaminsantiin laakiin madaxweynaha waa uu ka dhawaajiyay waxa uu yiri arintan shabaab kaliya ma aha waxa jira dad dawladda la shaqeeyo shalayto waa taliyii hore markaasi dhanka sirdoonka Cabdalla waxa uu ka dhawaajiyay in madaxweynaha lis markaasi ku qoran rag al-shabaab la shaqeeyo dawladda markaasi ku dhex jirin loo gudbiyay arintaasina waxa uu yiri waxba kama qabanin ma salaad shaac uu ka qaaday in arintan ay tahay inside job dad gudaha ku jiro marka arintan gabadhaasi baasiro oo la sheegay ba in ay ahayd gabadha markaasi iyadu qaraxa ka dambeysay laakiin gabadhan la taliyaha dhanka arrimaha bulshada gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho waa ay beenisay waxay tiri arintaasi gabadhaasi waxba yaala nabanin waxba al-shabaab ya dusha eed laga saarin arintaasi waxa ka dambeysay rag dawladda la shaqeeyo rag markaasi meeshan loo ogol yahay ayaa galay marka waxay tiri beenlow waxa uu marqaati gashadaa qof dhinta iyo qof maqan gabadhaas way dhimatay maanta inay sax tahay iyo inay beentay Allah nago laakiin qofka waa qof maanta dhintay oo xisaabtii Allah la jirta in ay tahay laakiin waxay tiri arintan waa arin loo dhan yahay arintan waa arin inside job waxay markaasi shacab weynaha xarunta gobolka Banaadir ee Muqdisho ka codsatay in fadhiga laga kaco arintan waa arin laga soo shaqeeyay waa arin markan dad dawladda ka shaqeeyo gudaha ku jiro arin markaasi 2 maalin ka hore kaamiraga la dansaday waa arin ay iska cadahay marka waxay tiri waxba yaan been isku sheegin arinta way iska cadahay kullay qofkii maanta gudoomiyaha duqa Banaadir oo bulshada u shaqeynay oo maalin walba xafiiskiisa fadhiyo oo maalin walba arrimaha ammaanka iyo sidee qaraxeen looga hortagaa iyo sidee dadka nabad ugu saxdaan uu ka shaqeynay maanta qofkii dhibka u geystay kullay adigana kuuma daahayo ay tiri aniguna ima daahayo laakiin inta la isku jiro Allah qof walbana uu dhimani qof meeshan joogina malaha waa la iska horeyn qofba qofka kale uu ka horeyn marka waxay tiri fadhigaan ka kacno arintan waa arin markaasi qorsheysan waan ogaan doonaa xaqiiqada laakiin waxay tiri arintaasi waa arin bal muuqaalkan qaybta labaad ee la wax dhici karana ma ah hoolka sida la sheegay kaamirada hoolka ku taalo before 2 days ago agency la damiye wax laga soo shaqeeyay meeshaas ka dhacay marka horta waa ayaan darana haysato laakiin maanta waxaan sheegaa oon caddaynaa in maxaa la yidhaahdaa wixii dhacay lagu kala heri doonin ilamaa reality-ga ay timaado haddii qarax meesha la geliyana qof baabuurkiisa meesha loo ogol yahay aa geliyey meesha sidee laguma gala annaga lagu baaraa dabiicadna laga fatashaa gaari xildhibaana loo diidaa senatora loo diidaa sabtaan wasiirada lagu dhibaa sidee qarax loo geeyay marka waa wax laga soo shaqeey waa inside job marka Soomaali Maxamede waxa waaye hadda dadkaana gobolka Banaadir joogno waa wada dhimanayna kulli geeriya sugayna liana ma tashanayno wax miska celin karno ma ka hadli karno I don't know
I don't know really ninkii madaxa noo soo qaado iyo hal doorkeeni waa la dilaa bas waxaa la dhahaa waa cambaareynay waan ka dhacnay waan ka yeelnay dabagal ma laha falka intuusan dhicin waa in laga hortago way noqon weysa saamaha waa in investigation la helo waa in dabagal la sameeyo ma jirto waa dhimatay waa lagu duugaa laba beri af Facebook inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun saas ma ku dhamaan karnaa waa maya waa inaan kacno war dalka annagaa leh war dadka annaga inaga dhasheen damiirka intuu naga aado damiirka ma naga dhintay maxaad ooranaynaa intaan ka badan war wallaahi bilaahi tallaahi rag badana xafiiskooda loogu galaa wallaahi dad badan asaan ku dhammaanayo injineer yariisi muxuu haleeyay waxba waa nin muwaadin soomaaliyeed waa nin habeen iyo maalin soo jeeda waa nin u dhammaaday shaqo waa nin daacada oo miskiin ah qofka yariisa qarax u geeyay wallaahi qofay dhaafayso qof kasta u geynay mas-uul kasta isugay waxaa yariisoo maray waxa ayaan darre nin shaqadiisa gudanayo in intii la dilo shabaab waayo wax shabaab la dhaho ma jirto no way shabaab wax la dhaho ma jirto yariisa wuxuu ku baxay inside job waxaa laga rabaa dadka amniga gobolka banaadir jooga amba dowladda federaalka wixii yariisoo dilay amba qaraxa soo geliya ayagaa laga rabaa wixii kaamirada hoolka damiyey ay laba beri ka hor loo damiyey ayagaa laga rabaa ani gabadhaa isqarxisay ma believe garaysni hoolka aniga arkay qarax qof ku xiranay darbi ma dumiyo daaqadana ma fujiyo wax meesha lagu xiray ani saa believe garaysana meesha ani waa galay waa arkay arxandarada ummadda lagu dhameeyey waan arkay 2 days wallahi shock ku jira shock ilaaha meesha iga badbaadiyay laakiin kan ku dhaawacmay iyo kan ku dhintaba waa walaalahayga daawadayaal sidaad u aragteen ba muuqaalka qaybta hore iyo qaybta labaad waa daabateen kollay fikirkiina waa inoo muhiim sidaad u aragto adiga qaybta comment ay u soo qori kartaa in arintan ay sheegayso maadaama dad badan oo mas'uuliin madaxweynaha xitaa uu kartay in arintan ay tahay arin markaasi gacan lagu siinayo intaas ayaan jecelahay inaan muuqaal ku soo koobo fadlan fikirkaaga waa inoo muhiim qaybta comment-ga waad nagu reebi kartaa sidaad u aragto iyo muuqaalkan sidaad u aragto gabadhaasi waa la taliyaha dhanka arrimaha bulshada gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Engineeriso oo kamid ah dadka markaasi dhibaatada uu ka soo gaaray qaraxii ismidaaminta ka dhax xarunta gobolka Banaadir 24 bisha 7 ee July sanadka 2019 qaraxaasi oo mas'uuliyadiisa ay sheegatay ururka al-shabaab oo ka dagaalatay qaybo kamid ah Soomaaliya duqa magaalada Muqdisho xaaladiisa caafimaad magaalada Muqdisho ayaa wax looga qabay balse waxa loo qaaday dalka walkaasi uu ku marhayo dabiib kala duwan qalina kala duwan aan u soo duceeyno duqa iyo inta markaasi ku dhaawacantay inuu alla caafiyo una soo duceeya mar waliba salaada tukataan in dadka walaalaha muslimiinta dhibaatada ku jiro meel walba ay joogaan inuu alla dhibaatadaas ka dulqaado amni ugu bedelo walaalaha Soomaaliyeed waxaan leenahay Allah nabadna siiyo balse qofka hadii uu xun yahay oo aad aragto fadlan iska soo qabo qofka hadii aad aragto inuu yahay qof dhibaato u keenay bulshada fadlan iska soo qabo bulshada kale ha ku dhibaateeyeen soo qabo booliiska u gee xarunta booliiska sheeg laakiin hadii maanta aad aragto qof dhibaato bulsho u geysanay ama qof markaasi qof kale shirqoole ama qof qarax maleegahay qofkaasi hadii uu dad laayo 10 qof haduu laayo waxa la mid tahay adigoo dadkaasi laay maalintii yawmal qaab waxaad alla hortiisa loo hor istaagin aday ku tasha marka aan isku dubnaano qof walba oo dhibaato geysana fadlan walaalka kale ha ku fiirsanin qofkaasi u sheeg haduu diido ayarku dacwee bulshada laga qabto waxba yaan dhibaateen dardaarankaasi ayaan ku soo koobay muuqaalkay qaybta comment-ga faladiina waan iga sugayaa intaan muuqaalkan mid xigaan aan ku kulmi doono waxa idinku dhaafay sidaasi wa salaamu calaykum wa rahmatullaahi ta'ala wa barakaatuh